يا شيخ waxaan ahay gabar quraanka barata marka anoo daahir ahayn kitaabka quraanka ma qaban karaa oo ma akhrisan karaa alxamdulillah su'aashani waa su'aalaha khilaafkoodu mashhuur yahay mar walbana soo noqnoqota laba sababood baana keenay inay su'aashani aad u soo noqnoqoto koowaye inay caado ku dhacdo gabadhii waana number aad u badan dumarkay ku dhacayso waana wax soo noqnoqonaya joogta ومر walba ay imanaysa su'aashiisa waa dhinaca labaad ee waa mas'ala khilaafi oo wadaadadii hal qowl kaliya uma sheegin dadkii maalin walba qowl cusub baa loo sheegay way banaantay ma banaanay labada wadaad isdaba socota dhih wixii oo badan iyo wada masaladii khilaafiya marka isku darmato aad bay u soo noqnoqotaa su'aashani khilaafka dhamaan maayo baahideeda ay jirtana way jiri wixii inta ka badan waa aniga say ila tahay inaan ku iraado raajix iyo diin ahaan ila quman أنا أرتوح عد أو حرام تنمية جران مايو آيات يا حديث سجان أو عد أو حرام تنمية جران مايو إجماع علماء يذكر راعين أو حرام تنمية جران مايو صدرت أنا هو حرام مده كرو وأدن بنا مده كرو لكن وحده كرا هذا ضرورة وكلفين إن هذا سكده يسافي عن والخروج من الخلاف مستحب خلاف كوحي وادن بابتي مدن بابين إن هذا سكده يسافي عن haddaan daruuro imtixaanaad iyo waxyaabo kale oo ku kalifaya ayna jirin ama kitaabka musxafkeeda uu dayacanayn waxa dhici karta gabadhu iyadoo safara ama magaalada joogta musxafna jeebka ku wada tan boorsada ugu jiro inay caadi ku dhacdo de markaas oo kale waa daruura musxafka tuur lama dhihi karo waxa dhici karta inay iyadii caadada qabtay soo marto kitaab musxaf oo meel ku dayacan musxafkii oo dayacan oo ihaanaysan ka tag lama dhihi karo taasa kamid waxyaabaha daruuradka aan uga jeedo daruuradka waxyaabaha aan uga jeedo taasa kamid waxa laga yaabaa inay safar u baahato inay safar ahayd hotel baad deganaatid diyaaradaadiina berri way gabadhiina caada ku dhacday musxafkiina way wadataa meel cilay kaga tagi daruuraad saasoo kaleeta haddaynan jirin alkhuruuj min alkhilaaf mustahab weeye anoon lahayn waa dambiya waa xaraan haddana khilaafkuba inaad isaga wada fogaato baa ka wanaagsan billahi tawfiiq